sanadii 1984 mid ka mid ah jeelasha Mareykanka askarigii mas'uulka ka ahaa albaabada dibadda wuxuu wicitaan telefoon ka helay sargaalkii madaxa ka ahaa jeelka kaasoo sheegay in qarax uu ku jiro dhismaha jeelka qaybta koowaad. ilaalada ayuu amar ku siiyay in la furo albaabka jeelka, gaariga loo yaqaanana van ay soo qaataan, qaybta koowaadna ay si toos ah u keenaan. jeelka waxaa ku hareereysnaa 2 silig, gudaha jeelkana wuxuu lahaa 2 albaab oo kala horeeya, balse shuruucda ayaa diidaysay in la wada furo labada albaab isku mar. laakiin waqtigaas waxaa jiray xaalad kadis ah. qarax baa wuxuu ku jiray gudaha dhismaha, in la khilaafo sharcigana waa waajib. intaa kadib ninkii ilaalinayay albaabada ayaa wuxuu furay 2dii albaab, kadib waxaa soo galay gaarigii van. jeelka markuu soo gaaray dhismaha qaraxa, waxaa jeelka qaybtiisa koowaad ka soo baxay 6 nin oo ku labisan dharkii qaraxa loogu talagalay, bamka oo wax ku duuban yihiinna gacmaha ku sida. balse mid ka mid ah iyaga ayaa wuxuu bamka ku buufiyey gaas loogu talagalay in lagu yareeyo heerkulka qaraxa si aanay u qarxin. balse qoladii qaraxa gaarigii van ayay saareen, si toos ah waxay uga saareen albaabadii jeelka oo markii hore furnaa. laakiin ilaaladii oo eegaysa dhacdadaas waxay u maleynayeen inay dhibaatadii ka fogaadeen, iyagoo dhahay tani waa dhammaadkii dhibaatada, balse maysan garanayn tani inay tahay bilowgii dhibaatada. balse maxaa dhacay? waa qisadii dilaayaashii reer Mareykan. waa raggii argagaxa ku riday shacabka Mareykanka, waana gacan ku dhiiglayaashii jabsaday jeelkii ugu weynaa uguna adkaa gobolka Virginia ee cariga Mareykanka. balse marka hore intaanan bilaabin muuqaalkeenna, haddii aadan ku soo biirin channelka, fadlan ku soo biir adigoo saaraya subscribe si muuqaal walba aan soo gelin uusan kuu dhaafin. like-ta iyo share-tana nagu dhiirigeli. mahadsanid. qisadani waxay ka dhacday dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Virginia. waa 6 nin oo gacan ku dhiiglayaal ah. raggani inta aanay ka baxsan jeelka aynu isdul taagno sababta ay u ahaayeen kuwa sugayay in lagu fuliyo dil toogasho, looguna xiray jeelkan khatarta badan. raggan waxaa ka mid ahaa 2 nin oo walaalo ah. waxaa lagu kala magacaabi jiray James Bradley iyo Linwood Bradley. labadan walaalo ah waxay dileen in ka badan 20 qof, iyagooba sida ay sheegeen waxaa ka khaldantay tirada dadka ay laayeen. dadka ay dilayaanna waxay u dili jireen qaab arxan darro ah. waxaa ka mid ahaa dadkan ay dileen qoys ka kooban 3 qof, nin, xaas iyo ilmo yar. James wuxuu soo galay reerkii, qori ayuuna ku qabtay. walaalkii Linwoodna wuxuu bilaabay inuu xarga ku xirxiro. gabadhii ayuu kufsadeen, kadibna ninkii ayay u dileen si arxan darro ah, iyagoo jirkiisa marba qayb jaray. kadib waxay bilaabeen inay dilaan ninkii iyo ilmihii yaraa. inkastoo ay isku qabteen labadan walaalo midka ay hor dili lahaayeen ninka iyo ilmaha yar, ugu dambeyn waxay go'aansadeen inay aabbaha hormariyaan, ilmaha yarna ay ku xijiyaan. James iyo Linwood qoyskii dhammaantood markay khaarijiyeen waxay qaateen wixii guriga yaalay oo isugu jiray lacago iyo alaabo muhiim ah. labadan walaalo ilaa laga qabtay ugu dambeyntii, sidaas ayay dadka shacabka reer Virginia uga hayeen dhac, kufsi iyo dil. dilaaga saddexaad waxaa lagu magacaabi jiray Ariel Clinton. wuxuu si wuxuushnimo leh dil ugu geystay gabar yar. gabadhan inta aanu dilin ka hor qoorta ayuu silsilad uga xiray, isagoo soo daldalay, kadib toorey ayuu la dhacay ilaa ay naftu ka dhacday. dilaagan dhowr bari oo baaritaan lagu waday, caddaynna loo raadinayay, mar kale ayuu geystay dil isla dhacdadii oo kale ah. wuxuu kufsi dil u geystay gabar ka shaqayn jirtay xoghaynta xafiiska dugsiga hoose. kufsi kadib madaxa ayuu kala dhacay toorey, wuxuuna ku ceejiyey suunkeeda ilaa ay ka geeriyootay. dilaaga afraad waxaa lagu magacaabi jiray Lim Tagil. wuxuu dilay 2 dumar ah oo da'doodu ka weyn tahay 60 sano, balse waxaa lagu tilmaamay maskaxiyan inuu ahaa nin xanuunsan. dilaaga shanaad waxaa lagu magacaabi jiray Trek Peterson. wuxuu soo galay supermarket isagoo dhacay lacag dhan $6,000, kadib wuxuu dilay managerkii supermarketka. dilaaga lixaad waxaa lagu magacaabi jiray Willie Jones. wuxuu soo galay waqti habeenimo ah qoys hurda oo ka koobnaa oday iyo xaaskiisa, waxayna ahaayeen 2 qof oo waayeel ah. laakiin wuxuu dilay odaygii, kadib wuxuu ka codsaday duqdii waayeelka ahayd inay siiso dhammaan wixii hanti ay haysteen una duceyso, balse wuxuu u ballan qaaday inaanu dilayn. kadib waxay ku wareejisay dhammaan wixii hanti ay lahaayeen iyada iyo odaygeeda, laakiin nasiib darro muu badbaadin, iyana wuu khaarijiyey. balse hadda waxaan ogaanay raggani khatarta ay lahaayeen, laakiin baxsashada gacan ku dhiiglayaashan dilka ku xukunaa waxay ku abuurtay shacabka reer Mareykan cabsi, warwar iyo murugo aad u fara badan. waxayna go'aansadeen inaanay guryahooda ka bixin. askartii booliiska ahaydna waxaa qasab ku noqotay in shacabka, gaar ahaan wixii waayeel ah, guryahooda adoog loogu geeyo.
balse daawadayaal aynu in yar dib u fiirino raggani siday ku baxsadeen. taariikhdu markay ahayd 1984 maalinka ay baxsanayaan 2 bil ka hor, raggan mid ka mid ah ayaa wuxuu qoray waraaq magaciisana uu qariyay. waraaqda wuxuu u diray xafiiska xeer ilaalinta guud ee gobolka, waxaana ku qornaa warqadda jeelka weyn qaybtiisa C waxaa ku jira bam weyn, waxaana loo adeegsan doonaa in jeelka gidaarkiisa lagu qarxiyo. waxaa si degdeg ah jeelka loogu soo diray rag iyo ay baara bamka iyo meesha u yaalo. askartii markay xabsiga qaybtiisa C baaritaan ku sameeyeen waxba ma helin, balse 60 gacan ku dhiigle waraaqdan ay direen waxay kala haayeen ujeedo fog. gacan ku dhiiglayaashani ayaa si fiican u kala bartay xabsiga dhammaan qaybihiisa, tirada askarta, qaabka shaqada iyo si kasta oo jaanis looga heli karo. inkastoo 7 maalmood oo isbuuca ay lahaayeen maalmo gaar ah oo loo soo saaro barxad weyn oo ku taalay xabsiga dhexdiisa. maalin maalmahaas ka mida waxaa loo soo saaray meeshii barxadda ahayd ay banooni ku ciyaari jireen, waxaana ilaalinaysay 5 askari. iyagoo banoonigii gacanta ciyaaraya ayaa Willy Turner waa ninka dejiyey fikirka maxaabiistu ku fakanayso, iyo nin kale waxay u yimaadeen askartii ilaalinaysay mid ka mid ah. waxay ka dalbadeen inuu ku celsho jeelka. Willy ayaa ku dhahay askarigii jilib ayaa layga hayaa, ma ciyaari karo, xanuun badanna waan dareemayaa. kan kalena wuxuu u sheegay inuu musqul rabo, balse labadooduba waxaa lagu daray 2 askari oo sii raacda. maxaabiistii kalena waxaa ilaalinaysay 3 askari ee hartay. askartu shaki kamay qabin, cabsina kuma jirin, waayo raggani meesha muddo ayay ku xirnaayeen jeelka. jeelkuna meel ciyaar lagaga fakan karo maanu ahayn, ciidamo fara badan baanu ka howlgali jiray, albaabo aad waaweyn oo kala dambeeyana wuu lahaa. cabaar kadib maxaabiistii ciyaartii way dhammaysteen, waxayna codsadeen in la celsho dhammaantood. balse maxay samayn doonaan daawada qisadan oo qaybo badan aan u samaynay? waxaan kaga bogan doonaa qaybta labaad hadduu alla idmo insha Allah. la socod wanaagsan, amaan Allah.